السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابك كحورن channelka dadweynaha ee YouTube kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta daawadayaal maanta waxaanu ka warrami doonaa nin doctor ahaa oo lagu magacaabi jiray Dr. John Berger iyo ficilo la yaab leh oo ninkaasi doctorka ay ku dhaqaaqay haddaba kusoo dhawaada dhacdadan iyo barnaamijkeena maanta sidoo kale haddii aad ku cusub tahay channelkeena dadweynaha hubi inaad subscribe saartay si aad ula socoto mar walba barnaamijyada ka baxa haddaba soo dhawow balse haddii ku tahay waqtigii salaada iska jooji soo duko salaadaada dhax ka sii intaasi kadib koobkaaga shaaha soo riixo meel degan la fadhiiso dhacdada si wacan u dhageyso walaalka sharafta badan ku soo dhawow channelka dadweynaha ee YouTube kuna soo bir oo ka mid noqo asxaabta ku xiran adigoo riixaya badhanka casaanka ah ay ku qoran tahay subscribe sidoo kale si uu ku soo gaaro muuqaal waliba oo cusub riix calaamada gambaleelka John Berger waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 1961 miilaadiga waxaana ku dhashay qaaradda Afrika gaar ahaan Zambia sidoo kale dalka Koonfur Afrika ayuu waxbarashadiisa jaamacadeed ku soo qaatay isagoo isla mar ahaantaana bartay cilmiga caafimaadka adigu noloshiisii muddo kadib sanadku markuu ahaa 1987 waxa uu u boqolay dalka Canada waxaana ku noolaa magaalo lagu magacaabo Kibling halkaasi oo ka shaqo bilaabay xarun caafimaad waxayna magaaladii isku barteen gabadh lagu magacaabo Lisa Belden oo ahayd gabadh oo nin kale hore u soo furay oo wadatay laba caruur wiil iyo gabadh ugu dambeyn Berger waxa uu guursaday gabadhii sanadku markuu ahaa 1993 ayaa waxa uu qaatay dhalashada dalka Canada dadkii magaaladaasi ku noolaa ayaa ninkan aad ula dhacay oo ka helay akhlaaqdiisa iyo habdhaqankiisa wanaagsan ay walibana u dheer tahay aqoonta iyo sidoo wuxuu daweynayo sanadku markuu ahaa 1992 miilaadiga habeen ay dadku u dabaaldegayeen ciidda Halloweenka ayaa gabadh lagu magacaabo Candice oo waqtigaasi ay da'deedu ahayd 23 sano ayadoo shaqadeedii gudanaysa ayaa waxay dareemtay dawaqaad iyo dhulkoo la wareegaya intaasi kadib waxay la xidhiidhay saaxiibkeed ugana warantay xaaladeeda waxay kadibna goobtii ayuu ugu yimid waxaana u qaaday rugtii caafimaad ee uu ka shaqeynayay John Candice ayaa waxay soo gashay rugtii caafimaad ee John Berger si uu baaritaan ugu sameeyo xaaladeeda caafimaad balse miskiintu ma aanay ogeyn inay u soo gashay dambiile weyn oo khaa'in ah oo ku gabanayay maryaha cadcad ee dhakhtarka ninkii doctorka ahaa markii uu baaray gabadha ayaa waxa uu u sheegay inuu hayo cudurka dhiigkarku ayadoo arrinkaasina ay sabab u ahayd daal iyo warwar badan oo gabadha soo food saaray waxaana u sheegay isla waqtigaasi inay u baahan tahay inuu ku duro amba ku mudo irbad dejinah haddaba irbadii markii uu ku muday xoogay yar kadib waxa ay dareemtay dawaqaad zaa'id ah oo welibana u dheertaa inay qalasho ay farba dhaqaajin kari weydo waxa ay noqotay qof miirkeedu soo jeedo hase ahaatee aan awood u lahayn in ay samayso haba yaraatee wax dhaqdhaqaaqa waxay aragtay Dr. John oo dhinaceedii u soo socday isla mar ahaantaana dharkeedii ka saaraya oo kufsanaya gabadhii markii uu kufsaday gabadhii muddo kadib ayaa gabadhii caadi noqotay oo soo kacday intaasi kadib markii ay soo toostay ayaa waxa uu weydiiyay inay aragtay oo indhaheeda soo hormareen dhacdooyin iyo muuqaalo waxaanay ku tidhi haa deetana waxa uu ku yidhi waxa sabab u ahayd inaad aragtid waxyaabaha noocaasi irbadii aan kugu duray intaasi kadib gabadhii oo aaminsanayd boqol ninkan inuu kufsi u geystay ayaa iyadoo ka cabsi qabtay inuu dhibaatooyin kale u geysto waxa iska dhigtay qof aamintay hadalkiisa intaasi kadib waxay degdeg uga baxday rugtii caafimaad ayada oo weli dareemaysa dawaqaad ay welibana u dheer tahay warwar ku soo siyaaday gurigeedii markii ay gaadhay ayay dharkeedii iska saartay oo bax ku ritay waxayna degdeg u gaadhay xaruntii booliis ee ugu dhoweyd waxaana dacwo ka gudbisay ninkii John Berger ahaa ayadoo ku andacootay ninkaasi dhakhtarka ah inuu u geystay kufsi waxa loogu yeeray dhakhaatiir baadha oo hubisa gabadhaasi inay la kulantay wax kufsi ah waxaana caddaatay oo soo baxday gabadhii in loo geystay kufsi waxaana saldhiggii booliska looga yeedhay John Berger hase ahaatee John ayaa inkiray haba yaraatee inuu geystay wax kufsi ah intaasi kadib dambi baadhayaashii ayaa waxay go'aansadeen in baadhid lagu sameeyo dhiiggiisa si loo hubiyo inay iswaafaqaan dhiiggiisa iyo dhacaanka manida ah ee laga helay gabadhii jidhkeeda John ayaa arrintii soo dhaweeyay oo aqbalay intaasi kadib laabatada gacantiisa ayaa waxa laga qaaday dhiiggiisii markii la baaray oo la isla fiiriyay dhiiggiisa iyo dhacaanka manida ee qofkii kufsaday gabadhii isbuuc kadib natiijadii baadhistu markii ay soo baxday waxa la cadeeyay inaanu John haba yaraatee wax shaqo ku lahayn kufsiga gabadhaasi loo geystay sidaasi ayaana sanadku markuu ahaa 1994 lagu laalay dacwadii ay gabadhaasi wadatay xanuun iyo uur ku taal ayay ku noqotay Candice markay aragtay qofkii ay aaminsanayd inuu asaga kufsiga u geystay oo banaanka maray asagoon haba yaraatee wax ciqaab ah loo geysan waxaanay aaminsanayd inay bileysku asaga la jireen isla mar ahaantaana uu laalushay
haddaba ninkani dhakhtarka ah oo caan ka dhex ahaa deegaankii uu ku noolaa isla mar ahaantaana ku caanbaxay wanaag iyo akhlaaq suuban ayaa waxa aad ula qiirooday shacabkii uu ku dhex noolaa kuwaasi oo aad ula murugooday ayagoo aaminsanaa gabadhaasi inay doonaysay inay sumcadiisa iyo sharaftiisa baabi'iso. Candice ayaa arrintii waxa ka raacday ceeb iyo fadeexad waxaanay noqotay qof ay ilxun ku eegaan dadkii magaaladaasi ku noolaa. Intaasi waxaa dheeraa inay xidhiidhka u jareen asxaabteedii iyo weliba qaar ka mid ah ehelledeedii u dhowaa. wax garabkeedii taaganna waxa u soo hadhay oo kaliya labadeedii waalid waxaanay noqotay qof dadkii magaaladaasi ku noolaa ay ku sheekaystaan. Intaasi kadib ku noolaashaha magaaladii waa u dulqaadan weyday waxayna u wareegtay magaalo kale. balse Candice sidaasi iskuma ayna dhiibin waxa ay maal iyo muruqba ku bixisay siday arrintaasi uga tabategi lahayd isla mar ahaantana ay dibadda u soo dhigi lahayd dembiga uu ninkaasi kula kacay. waxa ay kireysatay oo lacag siisay shakhsi dembi baadha ah si uu ula ururiyo cadeymo muujinaya kufsiga uu ninkaasi u geystay. haddaba juhdi iyo dadaal dheer kadib gabadhii baadhaha ahayd waxa u suurta gashay inay soo hesho John candhuuftiisa. hase ahaatee qallayl iyo wasakhow badan oo ku yimid awgeed waxba waa laga fahmi waayey. gabadhii baadhaha ahayd mar kale ayay haddana dib u howlgashay oo waxay bilowday inay mar kale haddana John ku samayso raacraacid iyo dabagal. waxa u suurta gashay mar kale inay si dhuumashaa ku gasho gaadhigiisii iyadoo isla mar ahaantaana kursigii hore ee gaadhiga ee uu fadhiisanayay hoostiisa ay ka soo ururiso xooga yaroo timo ah oo kaga daadaatay. balse tintii markii la tijaabiyey ee baadhitaanka lagu sameeyey iyadna nasiib darro sidoo kale faa'iidadii looga baahnaa waa laga waayey. hase ahaatee baadhaha oo aaminsanaa 100% inuu John kufsi u geystay gabadhaasi ayaana isdhiibin. haddaba dadaal iyo howlgal kale ay dib u sameeyeen ayaa waxay ku soo ururiyeen muunado khuseeya John Berger waxaana la tegeen muunadihii ay soo ururiyeen ee khuseeya John Berger goob shaybaadh ah. baadhitaan kadibna jawaabtii waxay u dhacday sidii ay rabeen oo waxa soo baxday in uu gabadha kufsiga u geystay John ninkani ay dabagalka ku hayeen. intaasi kadib gabadhii ayaa intay ururisay natiijooyinkii soo baxay waxay la tagtay maxkamadda. hase ahaatee maxkamaddii ayaa ka diiday inay ka aqbasho cadeymahaasi ay gabadhu sidatay iyadoo ay maxkamaddu arrintaasi ay ku soobaysay inay cadeymahaasi yihiin kuwo aan loo marin waddadii saxda ahayd oo yihiin kuwo loo maray waddooyin khaldan oo tuugnimo ah iyo sidoo kale in la howlgalay iyadoon wax fasaxa laga haysan maxkamadda. sidaas awgeed maxkamaddii arrintii way ka diiday. hase ahaatee maxkamaddii waxay go'aamisay in mar kale qadiyadii dib loo furo waxaana mar kale maxkamadda looga yeedhay John Berger si baadhid loogu sameeyo. maalintaas waxaa isugu yimid si ay natiijadii u ogaadaan dadkii magaalada aad u tiro badnaa iyo saxaafadda. John markii loo yeedhay ayaa kalkaalisadii waxay damacday inay fartiisa dhiigga ka qaado. hase ahaatee John ayaa ka cudur daartay inay farihiisa dhiigga ka qaado iyadoo ku andacooday inuu qabo xanuun naadira kaasi oo u sababi karaya inuu dhinto haddii farihiisa dhiigga laga qaado. waxa uuna ka codsaday inay dhiigga ka qaato laabatada sare gacanta. hase ahaatee kalkaalisadii markii ay damacday inay dhiigga ka qaato laabatadii gacanta ayaa waxay kala kulantay arrintaasi dhib. markii ay ku daashay irbadii dhiig kaga soo qaadi kari weyday ayay irbadii iska bedeshay mid kale soo qaadatay. adigu rafaad kadib xoogay yar oo dhiiga ayaa dirqiga ka soo qaaday weliba dhiiggaasina wuxuu ahaa nooc si u yara bedelnaa balse cidna waxba kama soo qaadin arrinkaasi oo baadhitaan ayaa lagu sameeyey dhiiggii. maalmo kadib jawaabtii soo baxday waxaa lagu sheegay in DNA-giisu uuna haba yaraatee wax shaqaha ku lahayn kii laga helay jidhka gabadha. arrintiina waxay noqotay uun digtoorka ayaa la doonayaa in sumcadda laga dilo. qadiyadii dacwaddana halkaasi ayaa lagu xidhay mar kale. gabadhii miskiinta ahayd ee Candice dadkii waxay ku kalifeen inay iskaba qariso indhaha dadka iyadoo lagu aflagaadeynaya oo lagu eedeynaya inay tahay qof aan raadis oo lacag doondoonaysa. digtoorka oo shacabku aad u jeclaayeen hawshiisii iyo shaqadiisii halkii ayuu ka sii watay iyadoo qoyskiisa kula noolaa nolol ay ku dheehnayd farxad iyo deganaansho. hase ahaatee noloshaasi iyo farxaddaasi ma aanay noqon mid daa'imta. sanadku markuu ahaa 1998kii waxaa dhacday arrin gilgishay qoyskii farxadda ku noolaa. arrinta ayaa waxay ahayd subaxda ka mid ah gabadh 15 jir ah oo dhashay xaaska John Berger ayaa hooyadeed waxay u sheegtay inay sariirteeda hoosteeda ay ka heshay kondom cinjirka galmada. sidoo kale gabadha yar hooyadeed waxay u sheegtay inay laabatada gacanteeda ka dareemayso irbad isla mar ahaantaana ay ka shakisan tahay in la duray. hooyadeed ayaa markii warkaasi maqashay waxa si kelisa markiiba maskaxdeeda ugu soo dhacay arrinta gabadhii Candice ee sheeganaysay inuu John inta gabadha daroogeeyay kufsaday. waxaanay u oroday markiiba u degdegtay dhinaca iyo qolkiisa ofiska. markii baadhbaadhay ayaa waxay heshay daawooyin iyo irbado. markii uu ogaaday inay aragtay ayaa waxa uu sheegay inay gabadha yar waqtigii hurday ee aad u qufacaysay isla mar ahaantaana uu naqasku aad ugu dhigdhigayay sidaasi awgeedna uu irbad dejina siiyey si ay hurdadeeda ugu dareemto xasilooni iyo deganaansho. balse xaaskiisa oo aad u cadhaysnayd ayaana warkiisii rumaysan sababtoo ah gabadha yar isagu maamna dhalin waxaana isweydiisay qufaceeda aad maxaad u maqli weyday muxuuse kaaga qariyay kuugu sheegi waayey inuu irbad ku mudiyo gabadha yar. way oroday markiiba waxay ugu yeedhay booliskii markii ay baadhbaadheen waxay ka waayeen haba yaraatee wax caddayna oo muujinaysa inuu gabadha yar kufsi u geystay. oo waxa suurtagal ah inuuba cadaymihii baabi'iyey maadaama gabadha yar ku baraarugtay arrintaasi wakhti dambe oo wiig ka soo wareegayba. haddana sidii ayuu John mar kale kaga badbaaday in dembi lagu helo.
hase ahaatee dhacdadan dambe ayaa waxay abuurtay shaki weyn oo ku geedaama ninkaasi digtoorka ah arrintaasi oo gogol xaadh u noqotay in mar kale qadiyadii gabadhii hore dib loo furo mar kale ayaa John waxa loo kaxeeyay shaybaadhka si loogu sameeyo baaritaan xooggan iyadoo isla mar ahaantaana laga baariyo hidde-sidaha DNA-giisa haddaba markii la damcay in dhiigga laga qaado ayaa sidii si la mida waxa uu diiday in faraha dhiigga laga qaado iyadoo uu sheegtay inuu qabo xanuuno naadir ah oo sababaya haddii faraha dhiigga laga qaado inuu dhinto balse arrintii waa lagu fahmay oo waa la diiday oo welibana dhiiggiisii oo kaliya baadhid laguma sameyn qandhuuftiisii ayaa baadhid lagu sameeyey timihiisii ayaa sidoo kale baadhid lagu sameeyey haddaba baadhistan oo u dhacday si heer sare ah ayaa aad loo sugayay jawaabtii iyo natiijadii soo baxdayna waxay noqotay mid positive ah waxaa halkii ku caddaatay Dr. John Berger inuu gabadhii kufsi u geystay haddaba markii arrintii dhinaca maxkamadda u gudubtay ayaa John waxa uu isku dayay inuu isdifaaco waxa uu sheegtay in taasi oo jeer dambi lagu waayay caddaymahana la sheegayana ay yihiin waxaan jirin oo isaga loogu talagalay in lagu shirqoolo hase ahaatee arrintii markii ay ku cagirantay uu garan waayay dhinaca uga baxo ugu dambayn waa uu qirtay waxa uu sheegay inuu gabadha daroogeeyay sidaasina uu ku kufsaday intaasi kadib qaadigii ayaa waxa uu weydiiyey oo waayahay baaritaanadii hore sideed uga badbaaday marar badan baa dhiigga laga qaaday wax natiijo ahna waa laga gaari waayay ee maxaa sababay John waxa uu arrintaasi kaga jawaabay inuu laabtada gacantiisa maqaarka hoosteeda uu ku beeray tuumba oo cabirka dhererkeedu gaaraya ilaa 15 sentimitir isla mar ahaantan uu gudaheeda ku shubay dhiig uu qof kale leeyahay sidaasi awgeed mar waliba oo la damco in dhiigga laga qaado waxa uu soo fidinayay gacantii uu ku beeray tuumbada runtii waa fikrad shaydaannimo ah aqoontiisii ayaa waxa uu adeegsaday hab qaldan ugu dambeyn John waxa lagu eedeeyay inuu laba gabdhood kufsi u geystay waxaana lagu xukumay xabsi 6 sano ah John xabsiga waxa laga soo daayay sanadku markuu ahaa 2003 2 sano ayaana laga cafiyay iyadoo cafiskaasina uu ku hantay dhaqankiisa oo aad u wanaagsanaa muddadii uu xabsiga ku jiray awgeed haddaba xabsigu markii uu ka soo baxay muxuu la kulmay waxa uu soo baxay xaaskiisii oo dacwad furreyna ka gudbisay oo iska furtay shaqadiisii oo laga yariyay iyo waliba dawladda Canada oo kala laabatay sharcigii deganaanshaha ay siisay waxaana loo soo masaafiriyay Koonfur Afrika ninkaasi ilaahay waxa ku manaystay uu siiyay aqoon lagu heli karayo waliba ajar ilaahay noloshii ayuu u fudeydiyay waxa uu geeyay wadan ay dadku aad u ciisaynayaan oo shacabku aad ugu helinayeen oo garabkiisa taagnaayeen balse markii uu aqoontiisii u adeegsaday ficilo saqajaannimo maxaa uu ka faa'iiday waxa uu ka faa'iiday nacayb ilaahay ummadii oo nacda fadeexad xabsiga oo la geliyo sharcigii oo lagala laabto iyo masaafuris ugu dambeyn waxa la sheegay John Berger inuu hooyadii kula noolaa Koonfur Afrika barnaamijkeena maanta halkaasi ayuu ku eegayay haddii aad ka heshay tabinta barnaamijka like saar videoga sidoo kalena haddii aad channelka ku cusub tahay haatan ku soo biro subscribe saar channelka dadweynaha ku xidhnow channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo bir